مثلا xashiishada oo kale مثلا sigaarka oo kale مثلا qaadka oo kale hadduu qofku iska daayo waxba noqon maayo laakiin waa nafsi wuu u baahan yahay qaarkoodna waxa weeyaan qofku ma dayn karo in musixa caqliya la dhigo mooyaane in dhakhtar la dhigo la daweeyo mooyaane waa sida afyuunka morfiinka kokaayinka maxaa la yidhaha kraaga waa kuwan haybiga intooda badan oo dhan saddex marxaladood buu qofku maraa bay dhahdeen markuu bahashan baranayo marka hore waa marxalada habituation inuu la qabsado oo barto ilaa maalmaha hore uu isku qaafayo qofka sigaarka baranaya maalmaha hore da uu ku qufqufacaa ama uu wareeraa marka wuxuu inuu caadaystaa buu doonayaa marka dambe wuxuu gaadhaa marxaladda tolerance inuu taxamulo inuu aqbalo ama inuu la qabsado marxaladda u dambaysana waa marxalaة الاsticbaad aw الtabiciya dependency inuu ka maarmi waayo waa marxaladda adoonsiga ah oo ka maaran waagaasi ka nafsigii ha dambeeya ka cudwiga ahi dee waxaana yidhaahdaan withdrawal symptomska ku dhaca oo ah xanuun qofkan qabanaya oo aanu noolaan karaynin nolol caadiya ilaa iyo la daweeye mooyaane kaasi waa tacriifaadka guud ee ay ku tacriifiyaan muxuu yahay muxuuse ka samaysan yihi markay qaybinayaan haddii aynu nidhi waa shaygaasi addiction ama dependency keena ama ictimaad nafsiya ama cudwiya idmaan noociyaadkiisu maxay kala yihiin dhowr qaab bay u qaybiyaan mar tacriifaad iska kooban bay ku qaybiyaan midabkay ku qaybiyaan waxay dhahaan maandooriyaha cad iyo maandooriyaha madow maandooriyaha cadi waa sida kokaayinka iyo harawiinka iyo kuwaas waa boodhar yaroo cad iyo maandooriyaha madow sida afyuunka iyo xashiishadda iyo kuwaas waa maandooriyaha madow laakiin waa tacriif basiita kaasi tasniif fiican maaha tasniifaadka kale ay ku sameeyaan waxaa ka mid ah inay ku qaybiyaan masaadirtiisii xaggu ka yimi marka waxaa la yidhahaa maandooriye طabiiciya naajara lah ilaahay abuuray geedaha caadiga ah xashiishaddu waa geed obyamku afyuunku waa geed qaadku waa geed kookuhu kokaayinku waa geed waa dhir caadiya oo leh maadaadka kan takhdiirka ama sakradda ama waalida ama baahida keensanaya wata marka waxay dhahaan waa mawaad طabiiciya waa mawaad naajarala qaarkoodna waxay dhahdaan waa mawaad musanaca ama nisfu takhliiqi bay yidhaahdaan waa mawaad la sameeyey walxa la sameeyey laakiin nussamaysa bay leeyihin oo waa maxay maadadii rasmiga ahayd ee naajaralka ahayd ayaa inta laabka la geeyo la kala baadho ayaa mawaadda ay ka tirsan tahay inta khatartaabaa lala soo baxaya inta kalena waa la iska daadinaya marka waa kii oo lasii safaystay oo waa maxay obyamkii caadiga ahaa afyuunkii caadiga ahaa ayaa lasii safeeyo morfiin baa lagala soo baxay morfiinkaa lasii safeeyo herowiin baa lagala soo baxay waa nisfu takhliiqi kuwaasi bay yidhahdaan asalkoodu waa naajaral laakiin naajaralkii baa la kala saaray oo laga soo saaray kuwa kan qaarkoodna waxay yidhaahdaan waa mawaad takhliiqiya waa mawaad synthetica waa mawaad laabka lagu sameeyo waa chemical compounds laysu geeyey oo la sameeyey mararka ugu badan ee daawanimoba marka hore loo sameeyey laakiin si xun loo isticmaalay waayo iminka ereyga lagu isticmaalo afka ingiriiska waxay dhahaan drug abuse mukhadaraadkii narcotic laga baxa waayo narcotigu mawaad gaaroo la yaqaanay buu ahaa waxyaabihii gaarka imika drug abuse bay isugu keeneen in la yidhaahdo waayo mawaadan inta badan imika la isticmaalayaaba waa maadooyin asalkeedii daawanimo loo keenay oo daawo loo isticmaalayay laakiin lagu sameeyey si xun in loo isticmaalo ama si xun loo adeegsado marka waxaa ka mid ah dee mukhadaraadkan takhliiqigaa waxaa laaliya dawooyinkan inta badan musixaadka nafsiga ay bixiyaan ee munawimaad kale
muhadi'aad kale waxa ka mida kuwan muhalwasaadka la yidhaahdo waxaa ka mida qaar badan qaabkaana mararka qaarkood way u kala kaxeeyaan mararka qaarkood waxay u kala kaxeeyaan taahiirka ay sameeyaan oo qaarna waxay yidhahdaan light drugs qaarna heavy drugs baa la yidhaahdaa dragga fudud ee qofku uu iska dayn karo sida qaadka iyo wixii la mid ah oo ma aha jidhkiisu waxba noqon maayo hadduu qofku iska daayo iyo kuwa haybiga ah ee dee khatartee waaweyn marna qaabkaasay u qaybiyaan mararka qaarkood waxay u qaybiyaan raadka ka yimaada oo maalan waxay idhahdaan qaar waxaa la yidhahdaa waa muhabitaat dumiyayaal ama muhabitaat nabayaal ama musakinaat ama munawimaat kuwaasoo dhan waa isku koox kooxdaasi waa depressants waa narcotica waa kooxdan keensata inuu qofku ama dumo dumitaanku waa maxay yani maaragtay kuwa intay bahala cabaan isagoo waddada iska taagan sida sprinka kolba isku laabmayo haddana soo toosayo uu dunsan yahay qofkani ama se maahee waa kuwan asalkooda lagu qofka lagaga tirtiri jiray inaanu dareemada dareemin sida morfinta iyo kuwan oo kale asalka caafimaadka waa la isticmaalaa oo waa maxay waa xanuunkaa qofka lagu ilowsiiyaa ama maahe waa munawamaadka kuwan lagu seexdo dhakhaatiirtu dadka ay siiseen dee qofku inuu caalamka soo jeedka ka baxo u seexdo ama maahe waa kuwa kan maxaa la yidhaahdaa muhadi'aadka ah dadkan isku buuqee buufiska iyo waxaanay ku dhacaan kuwa la siiyo ee maskaxda dejiya ama mudiibaadka kuwan bensiinkan iyo waxaan la nugnugo iyo xabagtan iyo waxaasoo dhami muhabitaat baa la yidhaahdaa waa isku koox koox kalea jirto kooxda cagsigeeda ah oo ah koox iyagu munashitaat ah ama munabihaad ah ama mudaadaat ilka'aaba ay yidhaahdaan waa kooxda kiciyayaasha stimulants kooxda la yidhahda weeyaan iyagu qofku hurdaday ka kaxeeyaan oo caajiskay ka kaxeeyaan oo tacabka iyo daalku dareemi waaya waa waali nooc kale ah waa waali nooc kale ah oo qofku wixii waxaa ka mida amfitaminiska waxaa ka mida maxaa la yidhaahdaa kokayinka waxaa ka mida qaadka waxaa ka mida kuwan amfitaminka la kooxda ah oo dhan waa stimulants waa kiciye iyaga laftoodu wakti bay kiciyaane marka dambe waa dumiyaan iyobe hadhow dee qaadiradii baa ka dambaysa iyo baababkii kale ee waa saacaadkan hore la isticmaalayo ayuu munashidka yahay ama uu kiciyaha yahay qaar waxay yidhaahdaan waa muhalwisaad muhalwisaadkani culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waa mukharabaat nafsiya bay yidhaahdeen cawaatifta qofka iyo bini aadamka iyo si wuxuu arkay iyo wuxuu dhan bay qaldaan markay liqaan kuwa waxaan jirin buu qofku arkaa kala rafci fiican iyo qurux iyo qalinkiisa laydhanayo wax ku qoraya iyo wuxuu dhan baa isbedela waa halwasa hallucination waxaan jirin colors aan jirin codod aan jirin oo midabaa u muuqanaya nooc min almusiiqa la socoto waa waali nooc kalaa iyana kuwaas waa qayb intooda badanna iyagu waa takhliiqi bay u badan yihiin inkastoo xubuuba majdi sabaaxa kan ay yidhaahdaan iyo maaragtay cishi lqaraabka iyo dhurina ay jirto qayb kale waa xashiishadda iyo maariwaanaha iyo maxaa la yidhaahaa baanjooga iyo kuwaasina waa isku koox waxaasoo dhan marka aynu tilmaamayno qayb waliba waxbay caan ku tahay ama waxbay samaysaa ama jidhka sibay ula falgashaa bal aan inaha ugu caancaansan wax ka tilmaamo xashiishadda waa scientific namekeeda waxaa la yidhahaa cannabis sativa ama cannabis indica labadaba waa la yidhahdaa alqanab alhindiy ayaa af carabiga lagu yidhaahdaa waa geed baxa hinduduna bahanj bay yidhaahdaan chinesku mayu ayaa la yidhaahaa iyo dawaa
ayaa lagu tilmaamaa maraykankiiyo kuwani maariwaanada waa bahashay yidhaahdaan asmaa badan oo kala gedisan afka carbeedna xashiishad baa loo yaqaanaaba scientific namekiisuse waa Cannabis sativa ama Cannabis indica labadaba way yidhaahdaan qaabab waxay ka mid tahay taariikhda kuwa ugu caansanaayee muddo badan lasoo isticmaalayay ilaa iyo waa taqaanin dee firaqii baatiniga ahaa ee caalamulislaami joogi jiray firqat alxashaashiyiin waa maqasheen xashaashiyiintu waa qolada tan waa firqad faatimiyiintii marka ay iskhilaafeen ismaaciiliyada nazaariyada la yidhaahdo ka tirsanaa qalcat ilmowt meel la yidhaahdo persia ku taalay deganaan jireen waxa xasan الصabax nin la yidhaahda haysan jiray marka kooxdiisa bahashan buu cabsiin jiray markay bartaan buu inta badan wuxuu u diri jiray waa qoladii koowaad ee caalamulislaami ka bilowda waxyaabaha kan assassinationska la yidhaahdo walidaalika ereygan ingiriisiga assassination ingiriisi maaha waxashaashiyiintii weeyaan laftigeedii bay assaasiin qoreen dabeetana ficilkii ay samayn jireen baa assassinate la yidhi af ingiriisiga ereygan bay ugu deeqeen erey af ingiriisi assassination la yidhaha ma jiro waa xashaashiyiintu weer ay ugu deeqeen baa la yidhaahdaa ficladoodii siyaasiga ahayd ee iyagu samayn jireen ayay ugu deeqeen xashiishadda bahashaa la yidhaahdo oo duruq badan loo isticmaalo waxay ka mid tahay kuwan la ursado ee sanka laga ursado waxay ka mid tahay kuwan sida sigaarka loo cabo waxay ka mid tahay kuwa kan shiishadan la cabo lagu darsado waxay ka mid tahay kuwa lagu duubo maxaa la yidhaahdaa tobaakada iyo wixii la mida qaabkaa inta badan masaarida iyaba u cabta xashiishadda qaarkood sharaab ahaan bay u cabbaan oo geedka caleemihiisa iyo laamihiisa iyo wixiisa o dhan inta la guro ayaa la radiyaa radinta sooma taqaaniin atanqiic biluga alcarabiya yani biyaa lagu dhigaa shayga markaad habeenkii biyo ku dhigtee subaxii waxaad miirta cabto maxaa tidhahdaa af soomaaliga waa la radiyey baa la yidhahaa way radiyaan marka ay radiyaan ayay cabbaan hindida inta badan saa u isticmaali jirtay qaarkoodna way cunaanba mawaad kaleoo tawaabisha iyo waxaan la kulkulayliye ama mawaad duhniya baa lagu dardaraa dabeetana qiطca sida jokolaatadoo kale baa loo googooyaa asaa jokolaatadoo kalea loo cunaa culammadu waxay leeyihiin waa shay mukhadara waa la isku raacsan yahay ictimaad nafsiya bay keentaa laakiin ictimaad cudwiya ma leh yani waa sida qaadkaoo kale oo qofku ama sigaarka oo kale qofku uu u baahanaya o u xaraaradoonaya laakiin hadduu joojiyo caafimaadkiisa waxba iska bedeli maayaan ama jirhkiisa aطibadu waxay maanta isku waafaqsan yihiin inaanay qiimo caafimaad lahayn oo loo isticmaalo mararka qaarkoodna haybuubo way keeni kartaa yani maandooriyaasha qaarba qofka caalamka soo jeedkaba ka saaro haybuuba maxaa la yidhahdaa qofku markuu miyirbeelka mararka qaarkood way keeni kartaa qofku haddii uu ka tago ma laha inta badan withdrawal symptomskaynu sheegaynay ma laha cumuuman marka la sheego marka la cabo waxay leedahay bay yidhaahdaan dareenka wahmiga in qofku sidii wax farxay oo kale u noqdo ama sacaada inuu helay oo kale u ismoodo socodku wuu ka luma dookhad wuu dareemaa waxaa kordha maxaa la yidhaahdaa darabaat اlqalb garaaca wadnuhu kor buu u kaca oo mararka qaarkood wadna xanuun bay keentaa ama asma adabxa sadriya ayay keentaa dhiigkarkeedu hoos buu u dhacaa qofka dhiigkarkiisu saa daraaddeed waxa ku bata bay yidhahdaan in aطraaftiisu cagaa iyo faraha iyo waxaas inay qaboobaan isagoo jirhkiisa kale uu kulul yahay dacladu inay qaboobaan inuu matago ama uu yalaaligadu ku badato markuu si rasmiya u cabo ee uu noqdo qof mudmin ku ana iyadu awoodaha maqalka iyo indhaha iyo waxoo dhan waxbay yeeshaa xanuunadan ikti'aabka iyo waxaasi oo dhan waa keentaa ama idiraabu الnowm bay keentaa
illusions qofka oo aragu ka xumaado ama waxyaabo kale arka waa ku dhacda hallucinationka ay sheegaya waa ku dhaca waxay dhahdeen mental confusion buu qofka qaadsiisa waa dawakhaa wareera caafimaadkiisu wuu daciifa sanbaba xanuun waa laga qaadaa ninnimadu way yaraataa waxaa la yidhahdaa maalan hormoonka muudka labnimada ee jirka qofka bini aadamkaa ku jira hormoonka labnimada waxaa lagu tilmaamaa testronku ilaa qofka caadiga ee ninka ah 740 nanogram ayaa boqolkii mililitr ba uu ku jira laakiin xashiishad cabku 400 buu noqdaa yacni nus bay ninnimadiisu gaadhaa ninnimadu ma aha tii jinsigoo qura waa waxa sifaat nin leeyoo dhan baa hoos u dhacaya timaa ragga ka soo baxa waxa ninnima leeday oo dhan waa hormoonkii testronka ninnimada sheegay oo dhan ayaa liita ninnimadii jinsiga ahaydna dee dabcan iyana waa la liidataa boqolkiiba 60 wax ma dhalaan bay yidhaahdaan ama xayawaankiisu yani cadad almanawi boqolkiiba 60 buu hoos u dhacaa waa xashiishada baasha la yidhaahdo dhowr nooc baan wax ka tilmaami doonaa nooca ku xiga aan tilmaamayna waa opiumka opium waa kelmad greega asalkeedu waa alcusaara waa markii geedku markuu baxo iniinyo burburan buu bixiya iniinta la dilaaciya calaamado loo yeela calaamadaha dheecaan ka soo dareema marka waa cusaaradii waa dheecaankii soo dareeray opiumku waa kaa opiumku markaa shajarat alkhashkhaash geedka la yidhaahdo ayaa laga keenaa waana afyuunka waxa af carabiga lagu yidhaahdo waa dheecaan lasija kugu dhegdhegaya oo bay yidhaahdaan midab cad leh oo ur aada u qurmuun leh oo dhadhankiisu aada u qadhaadh yahay bal idamka ilaahay waxa laaliya waxaa waxwaalo oo dhami wax macaani kuma jiraan wax macaan oo lays idhaahdo dadku macaan buu cunay ama nooca ma wax wada qadhaadh oo qurmuun bay u badan yihiin marka waa maado midab xun oo qadhaadh oo qurmuun marka ay duuduubantahay 25 maado waxaabaa ku jira bay yidhahdaan ama ka badan oo ay ugu weyn tahay dee morfinkiiyo wixii la midka ahaa ta'hiirkeeda marka la eego qofka maskaxdiisa iyo jihaaska casabiga ah oo dhan iyo cadalaadkiisa iyo noloshiisa oo dhanba ta'hiir bay ku samaysaa marka uu isticmaalo nuso saac gudihii ayay ta'hiirkaasoo dhan samaysaa oo waxa isbedela qofka wax kastoo jidhkiisa ka mid yahay si uu fakerayo waxoo dhan way isla bedelaan iyadoo ay ku xidhan tahay hadba kamiyada uu qaatay inta ay leeg tahay iyo qaabka loo diyaariyey waxaanu leeyahay baynu leenahay haddii uu qofku iska daayo 12 saacadood ilaa 16 saacadood hadduu ka maqnaado waxaa ku dhacaya withdrawal symptomski waa kuwa aynu lahayn layskama dayn karo ee addoon baa loo noqdaa wuxuu qofku ku dhacaya markaa in muruqyadu soo aruuraan in dhiiggiisu uu koro inuu tawaasunku ka lumo in sokorta jidhku ay kor u kacdo inuu dhidido inuu isaga duuf ka soo daayo inuu indhaha wax fiican ka arki kari waayo inuu isku kaajo inay manidu ka daadato isagoo iska soconaya inuu qof waala noqdo idan wuu gariirayaa markuu waayo ma aha qof caadiya ilaa iyo la siiyo mooyaane marka wuxuu gaadhayaa qofkani marxalat اlisticbaad marxaladda addoonsiga markaynu warkeeda soo koobno waa waxyaabaha weliba drugska qofku sida tan ugu milmo wuxuu gaadhaa xad mar walba intii hore kuma fillaata ee si uu euforiyadii u helo marqaanka si uu u gaadho intii in ka badan buu u baahan yahay intii in ka badan yani qaadka ka mijinta beriga hore cuni jiray beriga dambe mijinta waxba ma tarto waa inuu laba cunaa si uu marqaankii u helo berigu muddo markuu wado labada waxba tari mayso marqaankii si aad u hesho waa inaad 3 cuntaa yacni markaad bilowga ahayd halkaad mijinta ku marqaami jirtay hadhow 3 wax ka yar marqaankaagu gaadhi maayo ma marqaamaysid kadalika drugska oo dhan waa nooca kan marka hore waxaa laga yaabaa inuu jurcaad yar ku bilaabo laakiin markuu wakti la qabsado jurcadaasi hadhow kama helayo wixii uu u baahnaa wuxuu u baahnaanaya markaa inuu koriyo
oo jurcadii jurco ka weyn uu isticmaalo intii in ka badan uu isticmaalo tanina waa caynka kan saa daraaddeed waxay yidhahdaan qofka kani 12 saacadood kama maqnaan karo waxay yidhahdaan waktiga dhow marka uu cuno wuxuu dareemaa waalida ay wada dareemaan ee ah raaxo aan jirin waxa kaloo ku dhacdo bay yidhaahdaan dareemada xanuunka oo dhan ma dareemo kulaylka dareemi maayo qabow dareemi maayo taabasho dareemi maayo waxaa laga yaabaa adigoo ninku wada dhaxmaysano wada koor sitataan inuu isagu halkaa kolba hunsaa leeyaho soo jeedo oo fadhiyo waayo isagu waa cabsan yahay markaa dareenkii oo dhan baa tegey marka caqligoo qura ma waasho ee tan waxaa raacaya dareemada laftoodii baa la tegaya saa daraaddeed qofkii waxaanu dareemaynin taabasha aanu dareemaynin kulayl baanu dareemaynin qabow baanu dareemaynin matag baa qabta marka ay sheegayaan caafimaad ahaan waxa iska bedela wax aada u tiro badan baa iska bedela markaan soo duuduubo maadada saddexaad ay tilmaamaan ee kuwa dhirta ee sidooda ah dee waa qaadku waa maadad maandooriya ah waayo muran ku jiray cilmiyan waa jirtay laakiin maanta cilmiyan muran kuma jiro inuu maandooriye yihi mawaadda ku jirta siiba 3 maado ka mida catin cathonan iyo efedrinka waa mawaadaad munabbih ah ama munashit ah ama stimulant maadaadka wax kiciya weeyaan qofku marka hore uu cuno jidhkiisu wuu isbedelaa wadna garaaciisu wuu kordhaa markuu xoogaa qayilka u fadhiyo ayay maadadan cathononka la yidhaahdaa dhiiggiisa si fiican u gashaa jidhka oo dhan gaadhaa dabeetana wax firka nax la yidhaahdaa ku dhaca central nerve systemkiisa isbedela wuxuu noqdaa sidii qof dagaal u diyaaroo kale qofku marka uu naxo ama dagaalka u diyaar garoobo jidhkiisa waxa isbedela kow wadnaha garaacistiisa way badataa dhiigga muruqyada iyo meelaha ku shubma wuu badanaya waayo inaad ama orodo ama cararto ama waxba dee ilaahay ugu talagalay markaad naxday ama baqatay marka kuwaa dhiig badan baa la siiyaa dabadaha xididada jiro oo dhan waa la cidhiidhiyaa waayo waxaa loogu talagalay haddii nabar kugu dhacayo waxa inaan dhiig badani kaa daadanin waxyaabaha xinjirta sameeya way diyaar garoobaan qof dagaal ku jiro kale buu noqdaa dabeetana waa markuu ismoodayo inuu faraxsan yahay ee uu marqaanku waktigaa waxaa bilaabma hadal badnida markaasay wada sheekeeyaan oo mid walba sheekadiisa akhriya laakiin muddo yar markuu joogo oo cabaar fadhiyo ayaa waxaa bilaabma dumitaanka markaasaa qolkii dhammaayay dadku wada sheekeynaya mid waliba wuu aamusaya mid waraaqaa yarra hortiisa yaalla googooya iyo mid garaabada jarjara waa la aamusayaa qofna ma dhawaaqayo kullu daalika waxa weeyaan waa markuu sii dumayo kadibna waxaa bilaabma waktigii aamuska waxaa bilaabma waktigii cunno ka go-a waxaa bilaabma waktigii hurdadu ay ka tegaysay aanu seexanaynin jidhka aad moodaysa in qodxa ka mudmudayaanu waxaa bilaabma nolol kale oo jadiida waxaasoo dhan waxa uu mas-uula maadadatan waxyaabaha laynoogu naxariistaa waxay ka mid tahay xadka waalida ama khatartaa waxa loo gaari kari waayey qaadka inta aad cuntay baanu ayaan ku gaadhsiin karin haddii inta la siibo lagu siin lahaa qaar badanoo kuwa kalaa way kaaga khatarsanaan lahay haddii laakiin calooshaa kaa horbuuxsamaysa intii aanad qaadanin kamiyadii xadkan lagu gaari kari lahaa laakiin isaguna waa sida xashiishadoo kale ma laha qofku hadduu iska daayo caafimaadkiisa waxba iskama bedelaan yacni inta badan ee caadigahay waa inaan waxba iska bedelin waa iska jiraan midhadha maqashaan yidhaahdaa waan saxaroon waaye kan baa igu dhacay laakiin inta badan normality oo qofku hadduu iska daayo waxba jirkiisa iskama bedelaan maadada ku xigta waa kookaha bahashan la yidhaahdo kooka waa isna geed ka bixi jiray latin america iyo dhulkaasi ka baxa mawaad mukhadarana laga soo saaro kuwaasi waa mawaadda ah originaalkoodiiya dhirtoodiiya geedkiisiiya waxaa jira mawaad musanaca oo kuwan laga soo dhex saaro waxaa ka mid a morfinta morfintu
afiyuunku mukawinaadku ka samaysay boqolkiiba 15 baa morphine wasaa'iqda طibbiga ay dino4kii bay soo gashay laakiin ilaa qarnigii 16aad waa la yaqaanay baa lagu tilmaamaa waa boodhar yar oo cad oo aan ur lahayn oo dhadhankiisu aad u qadhaadh yahay oo biyaha ku milmi kara iyagoo milay iyo iyagoo kiniin ahaan u liqay iyo iyagoo isku muday iyo wax oo dhan waa loo isticmaali karaa waa kuwa leh ictimaad nafsiga iyo ictimaad cudwi labadaba inuu nafsiyan psychological inuu u baahanayo iyo cudwiyan jir ahaan inuu u baahanayo oo qofku hadhow withdrawal symptomska ay ka muuqanayaan oo aanu ka maarmi karin ilaa dhakhtar la dhiga mooyaane musixaadka caqliga iyo qoladaasi caafimaad ka shaqaysaa inay iyagu dib jirhkiisa uga miiraan oo u daweeyaan oo laga shaqeeyo mooyaane waalidaasi kama go'i karo hadduu is idhaahdo iska daa asliyan caqaar طibiya buu ahaa daawanima loo samaystay marka hore imikadan weli waxaa lagu isticmaalaa dadka qaba maxaa la idhaahdaa kansarku markuu xado dhaafo wuxuu leeyahay alam xanuun aad u daran oo aan dawooyinka yarre kaarjibintoo dhamme aanay jebin morfin bay siiyaan oo kaarjibin loo siiya waxaa ka mid a dadkan jaldat اlqalb ay ku dhacdo iyaga laftooda kaarjibin ahaan baa loo siiya waxaa ka mid a dadkan gubta dhakhtarka marka la dhigo qof soo gubtay siiba gubashada level 1ka ah yani gubashada marna neerfahoo dhan baa qofka gubto oo aad uma dareemo laakiin marna aad buu u dareemaya waa markuu neerfuhu nool yahay kuwaana way siiyaan alxuruuq الshadiida waxay kaloo siiyaan bacd alcamaliyaat اljaraaxiya dadka la qala qaar ka mida waa siiyaan laakiin waa inuu dhakhtar qoray wakti muxadadana la siiyey lagana ilaaliyey inaanu ku noqonin addicted ama qoladan kale iyagu wixii dawanimada loogu talagalay bay u isticmaalayaan drag ahaan iyo maandooriye ahaan qofku markuu cabo dee waaliduu bilaabaa wixii aynu sheegaynay oo dhamme waa ku soo baxaan haddii uu waayana waxaa ku dhacaya inaanu noolaan karin inaanu seexanaynin inuu jidhkao dhamme iscuncunayo inuu isku kaajayo waxaynu balaayo akhrinoo dhami waa wada qabaan waana mushkilaadka ugu badan waxay ka mid yihiin kuwan ay irbadaa ku isticmaalaan marka xanuunada dhiigaga laga qaado dhanna inta badan dadka morfinta isticmaala way u ku dhacaa aids leh maxaa la yidhaahdaa beer xanuun leh waxaasoo dhan leh markaan soo duuduubo kanka ka sii khatarsani morfinta waxaa ka sii khatarsan heroinka heroinkuna morfinka laga sii saaraa afyuunka morfin baa lagala soo baxay morfinkana waxaa laga sii saaraa maxay heroin baa laga sii saaraa heroinku isagu wuxuu kaga cajab badan yihi mar iyo laba intaad cabtaabaad addicted noqonaysaaba wax badan ba isaga uma baahnid inaad muddo soo isticmaashiyo waxaasi isaga waxa laga yaabaa laba jeer haddii aba aad cabto inaad mar saddexaadka addicted noqotaabaad u badan tahay waxaanay leeyihiin morfinkaynu sheegaynay 4 ilaa 10 jeer buu ka raadayn badan yahay yani wuu kasii waali badan yahay waa isna boodhar yar oo cad oo naacim ilmalmasa bay yidhaahdaan qadhaadh biyaha ku milmi kara kelimadda hirosh ee jarmalka abu asalkeedu ka yimi oo macnaheedu yahay adawaa'i alqawiyi ta'hiir la macnaa waana kuwa ugu khatarsan ee la isticmaalo buu ka mid yahay marka la cababana waxaa bilaabma isaga ta'hiirkiisu wuu bilaabmaa 4 ilaa 6 saacadood baanu ta'hiirka waalida ugu weynu ku jiraa maraykanoo qura heroinka 3 milyan oo qof baa addicted bay yidhaahdaan 3 milyan oo qof oo u dhexeeya 20 jir ilaa 30 jir maaha dad waaweyn da'diina 3 milyan oo qof oo 20 jir ilaa 30 jir u dhexeeya waa weliba raqamka muclanka ee dowladdu ay sheegatay ma aha waxa meelaha iska jooga inta dowladdu sheegtay ee muclanka ah la caddeeyey addictedkaaba 3 milyan gaadhaya bay yidhaahdaan waana mawaadda leh dependencyga nafsiga iyo ka cudwiga labadaba qofka cabbaana inta badan
wuxuu ku dambeeyaa bay yidhaahdeen ama isdil ama musixaadka caqligaa buu inta badan ku dambeeyaa noloshiisu labadaa midun bay noqotaa marka hore ay cabbaan waalidan iyo farfarxaddan waa helaan dareemadu waa ka lumaan wadna garaaciisu wuu gaabiyaa hadhow markuu waayana ama muddo markuu isticmaalayana wixii aynu balaayo sheegayno o dhan oo laba laababa ku yimaada maadada saddexaad ay tilmaamaan waa koodayiin koodayiinku afyuunkaasna laga soo saaraa waa maado inta badan ku jirta dawooyinkan ay cabtaan ee loo cabo qufaca dawooyinkan durayga qufaca loo cuno haddaad eegto koodayiin way ku qoran tahay 2% 1% waxaynkaasi iyadoo abaa lagu daraa inta badan waxaa loo isticmaalaa quxquxdan qofkiiyo waxa kan inay ka dejiso laakiin qoladan sakhraanku iyagu waalidoodii ayay u isticmaalaan kuwaasay la mid tahay waxaa ka mid a kokayintii oo nin niman la yidhaahdaa 1860gii uu soo saaray muddo 10 sannadood bay isticmaalayeen markii hore waxaa loo adeegsadaa takhdiir mawduciga ah in jidhka meel gaara marka la suuxinayo suuxdin gaara ayaa loo adeegsan jiray laakiin habarqabayaashii cabbi jiray balaayooyinka markiiba waa helaaleen qaar ka mida culamaa'i nafsiguna way ammaaneen oo Sigmund Freud oo kale iyadu u dhintaan rajaynaya bugaagtiisana aad buu ugu ammaanaya mutcada laga helay iyo waxa laga helay maraykanku 15 milyan oo ka mida baa adagtida bay yidhaahdaan kokayinka meelaha ugu badan ee lagu isticmaalaa buu ka mid yahay kuwii hore nabayaal bay ahaayeen isagu waa stimulant waa sida qaadkoo kale waa kiciye waa kuwan soo jeedka iyo hurdada kaa ilaalinaya caajiska iyo waxaasi kaa kaxeeya buu ka mid yahay waxa aynu xanuuna sheegayno dhanna wuu wataa withdrawal symptomskiina waa leeyahay waxaa ka mid a maaddo ay crack yidhaahdaan cracka laftiisu 1893 ayay soo saareen waa maado kokayinka laga soo dhex saaray oo ka degdeg badan xagga raadaynta oo 15 seconds gudahood ayuu qofku bilaabayaa inuu raadaynteeda dareemo mawaadda tan aan tilmaamaya runtii wax la soo koobi karayo maaha maalan haddaan tilmaamo kuwan hallucinationka keena ama asumuum الnafsiya bay culamada qaar yidhaahdaan ama mufsidaat lilcaql dareemada qofka oo nooc min waaliya dadkan waalan oo kale qofka ka dhigaan bay yidhahdaan kuwan hallucinationska keena waa noocyo tiro badan oo man mediagu ah inta badan waxaa lagu sameeyaa laababka LSD ama kuwa kale u dhigmee tirada badan leh asalkooda qaarkood dhir baa laga soo saaray sida mescalinka oo kale ama caqaarkan ay STP yidhaahdaan STP yani magacyada quruxda badan leh ula baxeen baa kaaga daran STP S waa serenity الصفاء T waa tranquility waa الهدوء P duna waa peace waxay ka dhigeen in saafinimo deganaanshiyo iyo nabad bay yidhaahdeen baa la yidhaahdaa qaarka magacaasay u bixiyeen STP bay u bixiyeen laakiin intan midna ma leh ee wuxuu leeyahay inuu ka mid yahay kuwa ugu khatarsan ee la isticmaalo waxay keenaan kow qofku inuu nooc min waali nooc kala galo oo ah aragtidu inay isbedesho midaba inuu arko wax inuu maqmaqlo midabada muusig iyo wax la socda inuu dareemo bay yidhaahdaan sidii wax duulayo kale inuu yahay hawada lalaya wadniisu inuu kaco matag inuu qabto inuu wareero inuu qamandhacyoodo jidhidhacoodo muddo markuu isticmaalana waxay yidhaahdaan alidraak alxisi ba idiraab baa ku dhaca dareemayaasha qofka oo dhan baa khalkhal gala cunadu ka go-a mararka qaarkood ikti'aabka iyo xanuunadan depressionska ku dhaca chromosomeska carruurta yaryar waxbuu ka bedeli karaa bay yidhaahdaan ee mushawaha hadday islaantu cabto kuwa uurka ku jira waxbuu ka bedelaa kuwaasina waa caqaaqiir kale oo hallucination keena oo iyana nafta bini aadamka oo dhan khariba BCB baa ka mida LSD gaasaa ka mida STB gaasaa ka mida mescalinkaasa ka mida waa qaa'ima aada u tiro badan
ilaa 27 kiniin ayay الmutaxida ku qorayaan liiskooda oo noocan ka mid ah dee haddii loo gudbo isaga baabkii dhakhaatiirtan madaxana iyadu dee waa ka sii daraysa oo ah munashitaadka iyo munabahaadka oo ah mawaad asalkeeda daawo loogu talagalay maalan amfetaminka waa maado waxa lagu daweeyo waxa ka mid ah miisaankaa lagu dhimaa qofka ballaadha ayaa loogu talagalay in shahiyada lagaga lumiyo appetite-ka hungurigu inuu ka lumo cunada uu naco si uu u dhuubto qaadka isku kooxiyin inta badan qaadkuna waa la mid waxaa la mida shalal الricaashi ama waa xanuunkan barkinsoska la yidhaahdo gariirtada xanuunku uu keeno waxaa la mida oo loo siiyaa dadka qaarkood depressionisku xanuunadana qaar ay ku dhacaan mararka qaarkood waxaa la siiyaa dadkan khamriga addicted-ka ku noqday laga daweynayo mararka qaarkood waxaa la siiyaa dad suuxdimo ku dhacaan mararka qaarkood waxaa la siiyaa caruurtan isku kaadida ee habeenkii kaadida ceshan kari weyda waxaasoo dhan waa dawo lagu daweyn jiray max fortan la yidhahdo waa ugu caansan laakiin hadda waxay u isticmaalaan kuwan kaxeeya truckska gawaadhidan waaweyn iyo tareemada iyo shaqooyinkan adag qolada qabata iyo maaniska waxaan ka shaqeeyey kuwaasoo dhan baa hadda isticmaala waxaana loo isticmaalaa inuu hurdada ka kaxeeyo inuu daalka ilowsiiyo inuu sida qaadkoo kale waxaa laga raba qaadkoo kale ayaa intiisa badan loo isticmaala waayo qaadka iyo amfetaminku chemical structure-koodu reciprocal bay isu yihin only hydrogen tan xaggaa ku sawiran baa kale xagga kale ku sawirantaa in chemistry yani difference badan ma leh walidalik ba waxay ku tilmaamaanba inuu yahay qaadkuna waa natural amphetamine bay yidhaahdaan kanina waa synthetic amphetamine midna waa amphetamine natural oo ilaahay abuuray midna waa mid synthetic oo lagu sameeyey laabka lagu sameeyey kiniin ahaan way u liqaan oo waa biyo ahaan way u cabbaan sharaabka waa ku darsadaan hadday doonaan waa isku mudaan noocyo tiro badan bay ka soo saaraan kuwa kan oo ay suuqyada ku faafiyaan waxyaabaha ugu caansan ee uu leeyahay waxaa ka mid ah xanuunada uu keena ah insaanku shakuuk buu noqdaa paranoid waa waxa soomaalidu ay buufiska tidhaahdo qaadkuna wuu keenaa markuu bishaaradana ku badato qaadkana uu cuno problemsuna ku bataan marka dambe waa lay xamanayay iyo waa lay maagayay iyo waa layga shakiyey iyo warkaasuu bilaabaa all that waa paranoid waa amfetaminada waa xanuunaday keenaan qaadka ka mida amfetaminkan aan sheegaynay baa ka mid ah wuxuu keena waxaa ka mid ah tashawushu dihni inuu qofku marka dambe caqliyan afkaartiisu ay toos noqon kari weydo wasniga inuu lumiyo miisaanka inuu lumiyo inta badan qaadkuna wuu keenaa inuu qofku miisaanku ka lumo sida amfetaminku u keenaa buu u keenaa waxay ku tilmaamaan culimmadu in boqolkiiba 40 min mudminiy اlmunashitaat yamiiluuna ila shukuuki اlcudwaani bay yidhahdaan dadka cuna amfetaminada ay qaadka iyo kuwaasi boqolkiiba 40 ka midi inta badan waxay marka dambe ku dambeeyaan bay yidhaahdaan shaki cudwaaniya shaki dilaaya waa lay xamanayo wax dilayo ama wax maagayo buufiskaasi oo weliba aan ahayn buufis intuu iska buufo meelihiisa joogaye ah buufis mujrima inuu hadhow wax dilo aad loogaga cabsi qabo boqolkiiba 70 ka midina waxay yidhaahdaan guryahooda iyo reerahooda iyo waxaasi way dumaan iyagoo ka shakiya dumarkooda guriga dabaday baa la yimi iyo cid baa soo martay iyo baabkaasuu bilaabaa marka waxay yidhaahdaan inta badan waxaa ku dhacda boqolkiiba 70 shakiga daa'imka ay qabeen ba ayay ku lumaan waxaa ka mid a qaybta 8aad haddaan tilmaamo munawimaadku kuwii hore waa cagsigooda waa seexiyayaal waa daawooyinkan asliyan loo isticmaalo qofka in lagu seexiyo kuwan hurdada
kiniinadan loo liqo in qofku uu seexdo ama nucaas uu dareemo jurcaadkiisa basiidka ah laakiin markay quantity badan qaataan iyana waa barbiturateska waxaana yidhaahdaan oo dhan markuu quantity badan qaato iyana waxay keenaan mukhadaraadka ka mid yihiin asliyan waa daawooyin dhakhaatiirtu ay qorto siiba culamaa'i nafs dadkan xanuunadu seexanwaaga iyo warwarka iyo walbahaarka iyo walaaca iyo waxaana ay ku dhacaan waa daawooyinka loo qoro ka mid yahay طبيبka nafsiga ee psychiatriska ama psychologistka ahi waa daawo uu kuu qorayo caadiya asliyan laakiin qoladan drug addicted-ka ahi waxay u iibsadeen in Soomaaliya waa ogtiin diazepam iyo wax la nooca inay wada isticmaali jireen 10 iyo 20 midh ay u liqaan one time waa uun kuwaasi waxay yidhaahdaan 2500 oo daawo oo noocaasaa jira oo murakabaad kala gadisana oo konton ka mida يستخدم طبيا إلى الآن konton ka mida wali dhakhaatiirta isticmaasho bay leeyihin laakiin in badanoo ka mid ah oo ama laysku mudo ama kinin ahaan loo liqo asliyan waxaa loo isticmaali jiray dadkan seexan waayo in lagu daweeyo dadkan ku dhaco migraineka iyo xanuunadan madaxa ee wareerka adag uu ku dhaco dadkan calool xanuunka qaarkood alqurxa almacdiya ay ku dhacdo dumarkan maalan dhiigga markay helaan ku xanuunsada camaliyaadka jaraaxiga qalitaanada marka la samaynayo ama ka hor ama kadib in qofka la siiyo xataa dadkan ay ku dhacdo surciga suuxdimaha qaybo ka midi waxaasoo dhan baa la isticmaali jiray xataa waxaa isticmaala asulutaat alamniya booliiskan wax baadha inoo kiniinada ay dadka liqsiyaan marka ay rabaan ay wax baadhaan kuwaasoo dhan marka la isku daro iyaguna waxay ka mid yihiin mukhadaraadka corticaska qofka bini aadamka ama maskaxdiisa qaybaha ka mida waxyeela keena depressionka iyo xanuunada noocaas iyo keena qofka miisaanku inuu ka lumo keena qofku inuu hadalka xataa ku gadmado xanuuno badan bay iyana keenaan markaan soo koobo waxaa ka mid ah kiniinadan dhakhaatiirta madaxa ay bixiyaan depressantska muhadi'a ah dadkan psychologically xanuunsanaya ama xanuunada psychiatriga hayaan la siiyo iyaguna qaybo badanoo ka mida kiniinadooda waxay dadku u isticmaaleen qaladkan kale oo waxbay qaribeen waxaa ka mid a waxyaabaha kan mudiibaadka almudiibaat الطayaara walasmaaq mudiibaadku waa solventisku waa waxa kan waxyaabahanaan biyaha ku milmin lagu milo ama lagu maydho ee warshaduhu isticmaalaan weliba kuwan iyagu waxay kaga khatarsan yihiin solventiska kani iyo xabagtu iyagu waxay leeyihiin suuqa caadigaabay yaalliin oo dee warshadaha caadigaabaa isticmaala maalan dumarku markay marsadaan ba halkan yar ay ciddiyaa ku casaystaan kan lagu maydho ma taqaanin maxaa la idhaha ya maxaa la idhaha tindarrada tani waa solvent waa kuwan lagu sakhraamuu ka mid yahay waxaa ka mid a dee benziinkan caadiga ah ee ay yararku shubtaan waxaa ka mid a xabagtan kaba iyo looxaanta iyo wax la isugu dhajiye ee ay isticmaalaan kuwan iyagu waxay kaga khatarsan yihiin bay leeyihiin kiniinadii farmasiga lalahaa ha iibinin ma aha ilaa iyo dee dhakhtar daraga ka baac mushtareeya inuu u qoro mooyaane ma aha waxyaabihii mamnuuc ahaa in la soo dejiyo iyagu waa wax meel walba yaalla bay leeyihin dukaamada caadiga yaallo laga iibsan karo iyana maskaxday wax yeelaan beerkay wax yeelaan sambabkay wax yeelaan bale dhuuxay wax yeelaan waxaasoo dhan iyagoo sababa bale waxay dhahaan faqru dam animiyay keenaan xataa dhigyaray keenaan waxay keensadaan suluku cudwaaniya inuu qofku noqdo qof mujrim oo wax iska dila ama wax maaga iyaguna waxay ka mid yihiin un marka la isku soo daro drugska loo isticmaalo waana kuwaasi qofku sidii wax riyoorayo kalu noqdaa bay yidhahdaan markuu cabo shabhu xilm waa day dreaming ayuu galaa waxaasoo dhan marka aan isku daro waa nawciyaad ka mida aan wax ka tilmaamay waxyaabihii drugska maanta la isticmaalo
maxaa loo isticmaalaa waxa lagu falaya caafimaadkii way xun yihiin dhadhankii waa wada qadhaan waa wada qurmuun maxaa bini aadamka ku kalifay kow badhkood dadka badh dacfi iimaaniya u geeyey oo ilahi waa ka nebigu calayh الsalaaةu wasalaam ka xadiidku leh walaa yashrab اlkhamra xiina yashrabuha wa huwa muؤmin ma cabo khamriga markuu cabayo isagoo mu'mina waxyaabaha bara dadka waxaa ka mid ah asdiqaau suuga saaxiibka xun oo qof ragga caba hadduu arko qofkii oo la saaxiib yahay maalinta dambe aadna waad qayalaysaa suu kuu leeyay maalinta cagaartan isku day waxaa ka mida ba yidhaha waxyaabaha keena xoolaha iyo waktiga firaaqa ah waagii hore intaana iminka dunidu sii dawakhin ee dabaqaadka hoose baranin inta badan drugska waxay isticmaali jiray dabaqada maalqabeenka iyo qolada kibirtay lacagna way haysteen wakti badan oo firaaqo waxay ku qabtaan ay waayaanna way jireen dabeetana waktigaan isku dhaafino ayaa ama loo qayilay ama loo waashay ama loo isticmaalay waxaa kaloo jira dadka badh oo wax beena loo sheegay oo ah waaqacan dhibtiisaad ilaabaysaa iyo dareemo fiican baad helaysaa iyo qaar lagu yidhi ninnimaday korisaayo gabadha waad 7-8 jeer baad noqnoqonaysaa haddii aad bahalkan cabta iyo bini aadamku waxaasu iska jecel yihiin beenaha inta la isugu akhriyey ayaa ay qaarkood u cabbeen dhammaantoodna waa awhaamaan waxba ka jirin waxba kama jiraan dhammaantood cagsiga inta badan u wada wadaan waxyaabaha sababa waxaa ka mida caruurta oo aan gurigu si fiican u ilaalinin yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara waayo teenagersku waxay leeyihiin dhaqan la yidhahdo waa risky behavior wax kastoo loo sheego horta maadadba tijaabisid bay yidhahdaan just try it bal isku day waxaan uu xun yahay soo maa bal aan eegna siduu u xun yahay waxaa ka soo baxa caawa aan cabno aan eegna waxaynu aragno dabeetana 2-3 casho markuu ku celceliyo ama kuwa ay saaxiiba leeyihiin ay ku celceliyaan marka dambena drug addicted buu noqdaa marka heroin hadduu 2 goor cabade khalaas uma baahna hadhow isagoo gariiraya isaga tegaya meeshii lagu hayay idan xaafadda ama gurigu aan si fiican u ilaalinin waxaa ka mida dadka qaar oo mawaad caafimaad loo siiyey si xun u isticmaalay laakiin waxaa kaloo ka mid ah oo dragga dunida faafiya qasdan dowladaha qaybo ka mid ah oo taarikhda bini aadamka waxaa maqasheen waxa la yidhahdo opium wars dagaaladii afyuunka ee dunida soo maray oo masale dhaqaale daraaddeed loo galay waxaa jira waxaana yidhahdaan dirty game financing maalan aan 2 tusaale idin siiyo waddanka jina la yidhaahdo waxa uu yaqaanay waddanka filan buu ahaa culturally diin confucianism la yidhaahdo rumaysan nabadda jecel dadku aanay cunfiga iyo dagaalka ku badnayn wax soo saar waddankiisu uu leeyahay isagu market isugu filan dabadda aan waxba ka soo dhoofsaninoo dad nationalista ah dabeetana reer galbeedka maalan ingiriiska oo kale reer galbeedka 3 shay buu ka iibin jiray wuxuu ka iibin jiray bahashan la yidhaahdo borsaliinta ama dhoobada weelkan dhoobada laga sameeye waxaa xariirta siliconka silk xariir waxaa kaloo ka iibin jiray shaaha madow shaahan la cabo caleenta shaaha original waxa iskale China ingiriiskuna shaaha aad buu u cabbi jiray kadib dagaaladii ka dhacay maxaa la yidhaahdaa maraykanka civil warskiisii ka dhex dhacay iyo wixii la midka ahaa waxaa yaraaday ingiriiska cajsi tijaariya galay hard currency uu ku iibsado wixii buu waayey dabeetana wuxuu bilaabay inuu Chinese-ka opium baro opium buu ingiriisku soo geliyey Kwanzu meel la yidhaahdo
ayay opiumka keenaan dabeetana suuq madow dadkii bay bareen way gadeen lacag adag oo badan baa ka soo gashay oo shaaha madow siisto company buu sameeyey la yidhaahdo East Indian Company oo uu leeyahay Ingiriis India barigeeda iyo waqooyigeeda wuxuu ka dhigay meel afyuunka lagu beero dabeetana dawladda Ingiriis baa afyuunka beerta China tuuga ku geysaa dabeetana lacagta hard currency-ga ay soo hesho ayay ku isticmaashaa inay shaah iyo wax ka iibsato xad bay gaadhay baa la yidhaahdaa budgetka dawladda China oo dhan uu ka batay lacagtii uu Ingiriisku ka helayay heroinka uu ka helayay opiumka waddanka China baa ku mamnuuc buu ahaa maalintii dambe ayay xoog waxay ku tijaabiyeen inay meeshii Guangzhou magaalada la yidhaahdo kantoonka ah inay qabtaan Ingiriiska wixii joogoo dhan iyo reer galbeedkii iibinayay opiumka in laga ururiyo opiumkii oo dhan baa laga qaaday dabeetana Ingiriiskii ma British citizens baa xoolahoodii la qaaday buu yidhi dagaal buu soo bilaabay horta ka hor waxay direen maxaa la yidhaahdaa wafdi buu China diray oo u diray Ingiriiska laga codsanayo Ingiriis naga daawon opiumka baarlamaanka Ingiriiska ka dooday Glasgow odagii la odhan jiray bergii dambe ra'iisul wasaare noqday mooyaane baarlamaanka Ingiriiska oo dhan wuxuu isku raaciyay laga daynin lagu wado China opiumka lagu wado boqoradda u tageen boqoraduna waa ka soo diiday Ingiriisku wuxuu bilaabay waagaas waxay ahayd waagu hubka casriga iyo wax soo helay dabeetana dagaal buu ku qaaday China opium warka loo odhan jiray waa 1939 dagaal socday ilaa 1942 ayuu ku qaaday dabeetana China dagaal diyaar uma ahayn ilaa 30,000 baa laga dilo askari markiiba waa la jabiyey China mucaahada buu ogolaaday mucaahada Nanjing la yidhaahdo la galay oo ah awal hal magaalo baalku iman jiray soo ma ahayn Guangzhou waxay yidhaahdeen 5 free port inaad samayso oo opiumku ka soo dego jasiiradda Hong Kong la yidhaahdana inaad annagana siiso China waa laga xoog batay wuxuu aqbalay 5 magaalo oo Shanghai ka mid tahay oo Guangzhou ka mid tahay oo Jinmen ka mid tahay Fuzhou Ningbo 5 magaalo oo ogolaaday inay reer galbeedku daraga keenaan China laga iibiyo Hong Kongna wuu siiyey Europeankii kale ay isu tagayo waxay yidhaahdeen lafteenu kama maaranno Faransiiskii iyo Maraykankii iyo wixii iyana waxay yidhahdeen hana lagu daro mucaahadada iyana opiumkay keeneen China oo dhan baa la waalay China waxaa la yidhaahdaa waagiisii hore 1850gii 2 milyan bay ahaayeen dadka cabi jiray 1878 120 milyan oo Chinese drug addicted ahaa baa la yidhaahdaa Chinese-kii muddo markuu joogay wuu adkaysan kari waayey dib buu haddana yaro u dagaalamay Faransiiska iyo maxaa la yidhaahdaa iyo Ingiriiska oo labadii quwadood ee markaa dunida ugu weynaaba isugu tegay China haddana dib loo tumay 2 magaalo waaweyn oo kala la qabsaday China waxa la yidhi dib waa inaad u saxeexdaa mucaahado haddana 1858kii waa opium warkii labaad ayuu aqbalay mucaahadada dambe maxay tahay iyana markii hore hal meel buu ka diiday dabeetana 5 buu ogolaaday marka kan waxay la eegteen waqti Tibet-kana ay istilayaan dabeetana waxa ay ku amreen 11 dekadood inuu aqbalo oo opiumka laga soo dejiyo waa koow marka labaad bay yidhaahdeen waa inaad ogolaataa opiumku inuu sharci yahay oo qaanuunkii mancinayay waa inaad rafcidaa qaanuunkii mancinayna wuu rafciyey marka saddexaad bay yidhaahdeen missionary-ga maxaa la yidhahdaa kristanka faafistiisana waa inaad aqbashaa oo wadaadada iyadu diinta faafiyaan marka afraad waxay yidhaahdeen ninka reer galbeed waa inuu free u ahaataa meeshuu doono ee China ka mida inuu tegi karo kana soo noqon karo bilaafiisa in la soo geli karo waddankaaga oo dhan marka afraad bay yidhaahdeen waa inaad ogolaataa in aad samayso maxaa la yidhaahdaa hay-ad diblomaasiya oo Baking inaanu degno waa inaad ogolaataa wixii oo dhan baa China haddana lagu qasbo mar dambu haddana saxeexay heshiiska la odhan jiray Tianjin mar buu 1859kii yara gilgishay dib baaba loo weeraro ilaa Baking baa la qabsaday dabeetana wuu iska ogolaaday mucaahado kaluu saxeexo la yidhi wixii kharash naga baxay dagaalkana waliba waa inaad bixisaa
waa dee cadaaladda galbeedka yani waxaan leenahay dunidu muxuu daragga u faafayaa waxyaabuu daragga u faafo waxaa ka mid ah dowladaha xooga badan leh ama waaweyn qaybo ka midaba hard currency ka raadiya saa daraaddeed ba aqoon-yahanada qaarkood ku doodayaan suuqaqa dunida ugu waaweyn ee dhaqaalaha qaybo ka mid ah hard currency-ga ugu badan ee lagu taageeraa inuu yahay daragga lacagta ka soo baxda hadi waaxida mar labaad waxa uu socda bay dhaheen daddy gameskaa lagu finance gareeya mukhaabaraadka caalamiga ahi waxaa jira acmaal ay rabaan inay fuliyaan isla markaasi xukuumadahooda ama baarlamaanadooduna aanay aqbalaynin in maxay ay barjad u ogolaadaan waxyaabahaasi laakiin dowladda ayaa mukhaabaraadkeeda iyo dowladda waxay isku raacisay in ficilkan la fuliyo xaggee barjadka looga keenaya all daddy gameska oo dhan waxaa barjadkooda laga soo saaraa mukhaabaraadka caalamigaa baa iibiya drugska dunida iyaga traffic ka noqdo kala raroo wada lacagta ka soo baxdana dowlado dhan baa lagu ridaa waa maqasheen nicaragua iyo watergate-keedii nicaragua gate maraykanku isku haystay waxa ka dhacay oo dhan calaa kulli xaal waxaan uga jeedaa asbaab iqtisaadiya oo dowlado waaweyn oo raba hard currency inay helaan waa ka mid asbaab amniyana waa ka mid oo amniyaadka caalamku waxay isticmaalaan dadka ay rabaan inay shaqada qortaan dad badan baa can ariiqi darag lagu qortaa ama dragoo loo ogolaado inuu ka baac mushtareeya ha noqdo ama isagoo la cabsiiyey ha noqdo marka dambe baahday dabeetana dragana la siiyo informationkana keena drugsku maxay dhib bini aadamka ku hayaan de waxay dhib ku hayaan waa iska wada garan kartaan marka kale soxaykaa maaha dhib bulsheed bay ku hayaan oo dhib dhaqaalay ku hayaan human resourcekii wadanadu ay lahaayeen oo dhami waa dumeen oo marka lagu yidhaahdo waddan baa 100 milyan oo dhallinyaradiisii ay drug addicted tahay that means waxa weeye human resourcekii waddankuu lahaay oo dhami dhulkuu galay waxay dhahdaan wuxuu dhib ku hayaa family economics oo drugga waaweyn dadka barta faamiliyadoodu dhaqaalahoodu iskama xejiyo intooda badani waa u burburaan sababtaa darteed waxay dhahaan dhib wuxuu ku hayaa wax allaaliya waxa ijraam wadannada ka dhaca inta ugu badan leh waxaa gala maafiyooyinka dragga ka baac mushtareeye dadkan caba iyaga ikhtiyaalaadka iyo dilka iyo ijraamka iyo maafiyooyinka caalamiga ah oo dhami inta badan waa waxa kan bay isticmaalaan waxay yidhahdaan accidentska ugu tirada badan leh dunida ka dhaca gawaadhidan isjiidha iyo dilalkan iyo waxaan oo dhami waxay u dhacaan dad sakhraansan iyo dad daroogaysan iyo dad mushkiladana haysato waxay yidhahdaan aahaar caafimaad oo khatara buu dunida ku hayaa xanuunada faafo oo dhan druggan waxyaabaha faafiyay ka mid yihiin misaal basiita haddaan idin siiyo soomaali meel ku qayilaysa oo labaataneeye ka yar baa la yidhi ayay qolada caafimaadku ku qabteen meesha iyagoo jooga dabeetana waxay keeneen kuwii caafimaadkaa waxay keensadeen waa yurub meel ka mid ah in sawir halka lagaga wada qaado halkaas sawir lagaga qaaday intoodii ugu badnayd tibay baa laga helay kooxdii guriga ku wada qayilaysa marka qura la wada qabtay intoodii ugu badnayd 12 baan filaya inay yidhahdeen ba tibay laga helay 20 qof mise 8 baa laga helay labadaas aanan kala hubin yani maxaa keenay qol yar baa la isku xidhay waaxid dee tibay sidaba dhex fadhiya dan qolka yara la isku xidhay ee biyo la wada cabayo ee qiiqa la isku wada afuufayo sigaarka la isku afuufayo shaa la wada cabayo waxa la qabo dhan waa la kala wada qaadaya idan all infectious diseaseska inta ugu badan leh qoladan draguna waa kuwan dheer badan yar iyo wax isku wada mudo ee isku nooc isku wada mudo oo waxa kan kala wada qaada marka waxay leeyihiin caafimaadka dunida caafimaad darrada qaybta ugu badan la iyaga keena waxa kaaga daran qaybaha aynu nidhi cudwiya buu qofku uu laazima oo aanu ka maarmi karin waa in loo sameeyaa musixaad meelo dhakhaatiira oo lacag badani ku baxdo oo dadkan si dib loo rehabilitation loogu samayn karo
si looga miiri karo waxa kanoo qof caafimaad qaba isagoo uu soo noqon karo dowladaha qaarkood baa malaayiin kaga baxda dowladaha qaarkoodna dhakhaatiirtaba way gooyn waayaan meelaha caafimaad ee noocaasiya ma awoodi karaan inay sameeyaan waxaynu isweydiinaynaa marka ma alxal wama alxukm الsharci xukumka sharciga ah wuu fudud yahay isagu oo aslan waxaynu naqaanaa islaamku wuxuu u soo degay maqaasid shana inuu ilaaliyo caqliga qofka bini aadamka ah iyo jidhka bini aadamka iyo caafimaadkiisa ah iyo maxay maalka qofka bini aadamka ah cirdiga iyo sharaftida qofka bini aadamka ah yacni shanta qodob aynu naqaano ee waaweyn buu islaamku ilaaliyaa maandooryuhu shantaaba waxbuu yeelaa kow ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay inuu bini aadamka karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi اlbari wاlbaxr warazaqnaahum min الطayibaati wafadalnaahum calى kaiiri miman khalaqna tafdiila ilahi wuxuu leeyay bini aadamka waa karaamaynay bad iyo beribana waa qaadsiinay waxa wanaagsanna waanu ku arsaaqnay baa ilaahay yidhi in badanoo aan abuurayna waan ka kor yeelay waxyaabaha ugu waaweynee lagaga kor yeelay caqliga ka mid ah ilaahayna qur-aanka in badan buu caqliga ku ammaanaya laa yacqiluun qaar badan lagu tilmaamaya ama wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun ama la tilmaamaya ululalbaab ama ulunuha caqligu shareecadu aad bay u ammaanta walidalik ba axad alculamaa ayaa wuxuu leeyahay طائفة منxariفة bay caqlaaniyiin u bixiyeen buu yidhi waa eray bixin aada u qaldan buu yidhi waayo meel uu caqligu diintu ku maagtay ma jirto e salafku ahlulahwaa bay odhan jireen buu yidhi kuwa kane caqli maha waxay raacine waa hawa buu leeyahy ayaan caqlaaniyiin la odhanin caqligu sharciga wuu ammaanan yahy ina shara dawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun baa ilaahay yidhi laa yacqilkaa ah waxaan ammaanayn waxaa cajab mudan markaa qofku inuu alumma alcaaqila intuu doorto inuu ka tago alumma alxayawaaniyati alati laa tacqil inuu doorto inuu ku biiro bimaxdi iraadati maanlaawayaasha inuu ka mid noqdo isagoo ku jiray maxay kuwa caqliga qaba waxaa ilaahay inoo tilmaamay طayibaadka warazaqnaahum min الطayibaat baa ilahay yidhi waxyaabaha wan wanaagsan baanu ku arsaaqnay baa la yidhi subxaanaه wa tacaala waxa wanaagsan baa ah wixii la cunayey waxa xuni waa mamnuuc yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min الطayibaat kuluu min طayibaati ma razaqnaakum washkuruu lilahi in kuntum iyaahu tacbuduun islaamku markaa ma ogola wixii caqliga waxyeelaya ma ogola wixii jidhka iyo nafta waxyeelaya walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waar lafiina hadilina baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waar gacmihiina halaag ha isugu ridina baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala wuxuu nabigu leeyahy laa darara walaa diraar war dhib iyo isdhibi midina ma jirto idan shareecadu wax kasta oo caqliga waxyeelaya caafimaadka waxyeelaya jidhka waxyeelaya cirdiga iyo sharafta waxyeelaya maalka waxyeelaya waa mamnuuc maandooryuhuna intaaba waxbuu yeelaa maalku waxyeela ilahayna qur-aanka wuxuu leeyay ina almubadiruuna kanuu ikhwaana الshayaaطiin wakana shayطaanu lirabbihi kafuura dhaqaaluu waxyeela diintu waxyeela waayo khamriga ilahay wuxuu ku tilmaamay inama yuriidu الshayطaan an yuuqica baynakum اlcadaawaةa wاlbagضاء fi اlkhamri wاlmaysiri wayasudakum can dikri اllahi وcan الصalaaة fala antum muntahuun khamrigu colaad iyabuu abuuraa baa la yidhi iyo uurxumo wuxuu kaloo idinka celiyaa ilaahay cabsidii iyo dikrigii iyo salaad iyo maandooryuuna intaba wuu celiyaa colaad iyo dagaal iyo rabshadna wuu abuuraa nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa wax kasta oo muskiri inuu khamriyey wax kasta oo lagu sakhraamo inuu khamriyey maandooriyaasha qayb ka mida waa lagu sakhraama
wax kastoo caqliga tagsiiyo dee haybuuba qof ku ridaanayana waa mamnuuc sida sunta iyo xashiishka iyo wixii kaloo la mida walidalik ayaa culammadii hore nin ka mid ah ibn اlxajar alhaytami kitaabkiisa kabaa'irta kabiirada 107aad wuxuu ku tilmaamayaa maandooriyaha ibn اlxajar alcasqalaani fi fatxi اlbaari wuxuu leeyahy waxaa loo daliishan karaa kullu muskirin xaraamkaasi wax kastaoo lagu sakhraamo sharaab noqoya xashiishad noqoya iyo wax kale noqoyaaba oo isku mid buu leeyahy imaamu nawowi fii majmuuci wuxuu ku leeyahay wax kastooo caqliga zuuliya ama sharaab ha noqdo ama wax kale ha noqdee ama xashiishad ha noqdee xukumkiisu waa xukumka khamriga oo kale waana xaaraan salaaddii iyo wixii uu ka tegayna inuu soo celiya waa waajib bay ku tahy xadi mayna laakiin tacsiir baa lagu leeyahay culammadu waxay tilmaamayaan maandooriyuhu waxay yidhahdeen waa mufsidun lilcaql mukharibun lilbadan mudayicun lilmaal mukharibun lilshaksiya mujalibun lildarar mujlibun yani waxay tilmaamayaan inuu yahay waxa caqliga xumeeya jidhka xumeeya xoolaha lumiya shaksiyadda qofkiiyo personalitigiisa waxyeela dhib oo dhan u soo gaadhsiiya de haddii wixii diinta waxyeelayo oo caqliga waxyeelayo oo xoolaha waxyeelayo oo naftii caafimaadka waxyeelayo oo sharaftida waxyeelayo waxa hadhay ee waanu mamnuuca ku noqonayni muxuu yihi hadduu intaaba waxyeelayo waxaan ku soo koobayaa sidee loo daweynayaa addunya kullaha way isku dayday oo daawo way u weyday dowladaha umamka isu tegey cid walba badi bulshada inteeda badani waa la dagaalansantay kooxaha haddana gaara le mooyaane bulshada inteeda badani way la dagaalansantay laakiin haddana waa la joojin kari waayo laba tajribo ayaan markaa si kooban u tilmaamaya oo waxanba joojiyey midna ay casrigii nebi moxamed tahy calayhi salaatu wasalaam midna ay casrigan tahy tajriba waa tajribadii khamriga iyo islaamka khamrigu carabta dhexdooda wuxuu ahaa wax faafay oo dadka oo dhami uu cabo intiisa ugu badani wax haddaad gabayadooda akhridayo wuxooda dee sida loo ammaanayo iyo waxa gabay loo tiriya aanad malaynaynin wuxuu ahaa bay dhahdeen lafdu taajir haddii la sheego xilligaasi wuxuu ahaa ninka khamriga iibiya ninkani waa taajir haddii la yidhahdo bacmushtar bacmushtarada ugu waaweyni waxay ahaayeen kuwa khamriga iibiya waayo waxa ugu suuqa badan labuu ka mid ahaa iyadoo caynkaasiya buu islaamku yimi islaamku markuu yimid dadka kuma bilaabin khamrigu waa mamnuuca wuxuu ku bilaabay inuu dadka iimaan in ilaahay la baro rasuulkiisa la baro inay muslimaan in la baro in aakhira jirta in la baro in janno iyo naari ay jirto in la baro qofku wuxuu ku cadaab mudanaya iyo wuxuu ku janno gelaya inay jirto in la baro taasaa lagu rabeeyey islaamnimay qaateen saxaabadii khamriga cabbi jirtay intii aanu dee mamnuuca noqon saxaabadii waa cabbi jireen hal qisaan idiin sheegaya saxiixa ku taalla fii saxiixi muslim aan rajaynaya inay ku taallo caliy bnu abi aalib ayaa rabay ina nebi moxamed inuu guursado calayh isalaatu wasalaam faatima arooskiisii neef geela mise laba neefoo geela uu haysto midna uu beder ka helay midna la siiyey oo uu rabay inuu arooska kaga baxo ayuu maalmihii u aroosanayo wuxuu qabtay dabadda kaynta si uu geed idkhir la ydhahday wax u soo gurto uu iibiyo waxoogaa lacagana uu heli karo markaa uu arooska u dhigto intii uu ku maqnaa idkhirka ayaa qolo saxaabi khamri cabtay dee khamriguna fasax buu ahaa waa la iska cabbi jiray majaalista waaweyn ee saxaabadu yaalla majlis uu fadhiyo xamze baa lagu cabbayaa xamzaa cabbay dabeetana wuu dhergay xamzaa indhuu acsaadeen xamze oo sakhraansan ayay inani heestay
waxay ku heestay yaa beerka iyo walba kuruska isukahaya saaraya gela yacni halkan fadhiyo heesaa bay qaaday xamsaa soo kacayo labadii neefe cali uu rabay inuu arooska ku dhigto ayuu seefta mariyey hablihii buu kuruskiiyo beerka isu saaray cali baa yimi wargelaygii yaa laayey waxaa la yidhi adeerka xamsi ayaa dilay dabeetana wuu socday nebigu u tegay calayh الsalaaةu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiyo waxa dhacay moogtay maxaa dhacay dee gelaygii waxaa qalqalay baa la yidhi xamsi nebigu calayh الsalaaةu wasalaam baa soo raacay nebi moxamed iyo caliy bn abi aalib oo wada socda xamse u yimi xamse oo sakhraansan de xamse marka u yimaadeen is idhahdeen la hadal buu intuu kor u eegay nebiga kor ilaa hoos ayuu yidhi oo miyaa addoomihii aabbahay mooyaane wax kala tihiin buu yidhi waa nin sakhraansan de nebi moxamed buu ku leeyay ya cali wahal antum ilaa cabiidu abi aabbahay addoomihiisii mooyaane miyaa wax kala ahaydeen buu yidhi nebigu calayh الsalaatu wasalaam iskaga noqday yani waxaan uga jeedaa hada alxad buu taagnaa ragga waaweyn rag badan oo ka mid ay cabbayeen maalintay soo degtay khamriga mamnuucistiisa fahal antum muntahuun markay soo degtayna anas binu malik wuxuu leeyay anigoo shushubaya qolo saxaabo meel fadhido oo khamri cabayso oo loo shushubayo anoo shushubaya buu yidhi baa mid dhawaaqay markaasaa la yidhi qur-aan baa samada ka soo degay sheegaya inuu khamrigu mamnuuc yahay qof dambe koobkuu gacanta ku hayay afka uma qaadin buu yidhi waa la wada quba dabeetana magaalada madiine wixii khamri yaallo dhan baa la daadiyey ilaa suuqa madiina wuu uray bay yidhahdaan saxaabadu khamrigii lagu qubay nebigaa loo yimi xad la weydiiyo dee ila baashu baa mushtarkii caadiga ahay khamro agooni leeday baanu haynaa saanu nidhahnaa daadiya buu yidhi ilaahay rasuulkiisi agoon baa le ma u iibinaa may baa la yidhi walaa agooni mid ay leedahay walaa mid kala soo hadhaya quba waxay u yimaadeen waxay dhahay ilaahay rasuulkiisi anagu dhul dhaxanaanu ka nimaadna qabow baanu ka nimaadna waanu u baahanaa bahalkan waa isku yaro kulaylina maxaanu samaynaa waxba ma kulayliye joojiya buu yidhi qola kale tim waxay dhaheen daawaanu ka dhiganaa isagaaba bukaana buu yidhi inuu wax daawo daaye isagaa xanuuna buu nebigu yidhi calayh الsalaatu wasalaam dhaafa bihadihi اlkalimaat khamrigu waa mamnuuc sheegaya ayaa jiilu صaxaaba khamri ku dhaafeen baa mushtarkiisa maxaa bedelay iimaan baa bedelay dowladda maraykanka 1917 ee waxay isku dayday inay khamriga waddankeeda ka joojiso oo maraykanka khamrigu de waxa la isku raacsay inuu yahay sunta qura ee masmuuxa ah waa sun waa la ogolyahay taa haddana un dadkii laga kari waayo dee dowladu iska ogolaadeen dowladda maraykan baa isugu tagtay dabeetana waxay mamnuucday khamriga baarlamaanada labada golaba waxay soo saxeexeen inuu khamrigu mamnuuc yahay waddanka laga mamnuuco madaxweynihii baa saxeexay waxaa la yidhi maadadani saynu u adkayno dastoorka ha laga dabageeyo qaanuun caadiya ayay noqonin amendment bay noqotay dastoorka lagu daro maraykan in waddanka maraykan khamrigu mamnuuc ka yihi iclaamaad baa la sameeyey jaamacaadkaa lagu dhigay iskuullada lagu dhigay bahalkan xumaantiisa iyo dhibtiisa tviyada jaraa wixii la heli karayay ee wax warramayey malaa markaa tv ba lama hayna wixii kale ee war sheegi karayay ayaa waday dowladda maraykan o dhan waxay isku raacday caynka dowladda maraykan oo dilku uu yaraa muddo yar oo dhowr sannadood 4 sannadood aan ka badnayn 200 oo qof bay daldashay oo loo dilay khamre iyo cabisteed iyo wixii ku saabsan daraaddeed intaasoo kunoo qof iyo malaayiin baa maxkamadda la saaray dowladda xoog oo dhan bay ku tijaabisay cilmi iyo aqoon iyo waxay lahayd oo dhan bay ku tijaabisay si kasta bulshadii waa laga jari kari waayey waxay noqotay in dib amendment dambe baarlamaanka maraykan iyo dowladda maraykan isku raacdo in khamriga la fasaxo laakiin shuruud la sameeyo uun darwalku inaanu cabbin iyo
qof intaa gaadhsiisay inaanu warshad ka shaqaynayo in bahlada iyo raafka la iska gelgeliyo iyo mise millimeter baa la ogolaya waqtiyada ay la cabayo waqtiga shaqada inaan la ogolayn waxyaabo yaryar in lagu daro laakiin in la ogolaado waay ay u joojin waayeen ma wanaag bay ku ogaadeen khamriga maya waxay awood lahaayeen bay isugu geeyeen oo dadkii ka joojin kari waayeen idan qofka bini aadamka qalbigaa laga hogaa ee qaanuun lagama hago qaanuunku midhmidhka mufsidka ah buu qabtaa marka dadku waxa isku raaco xabad xabad loo taag waayaa qaanuunka dee lagu aamusiiyaa laakiin dadka oo dhan qaanuun laguma aamusiin karo qofka bini aadamkaa waxa xukuma qalbigiisa qalbiga haddii iimaan galo nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam lacagna kuma isticmaalin askarna kuma isticmaalin qaanuun kalena waxaa lagu isticmaalay in iimaan la dhiso dan in la tilmaamo inuu mamnuuciyay dadkao dham iskood bay isaga daayeen midhmidhkii iska dayn waayey baa markaa ama la karbaashay ama la xaday midhmidh waa jiraya cabcabayey laakiin dee midhmidhka qaanuunkaa lagula dhaqmayay dowladdii xoog iyo xoolaa baa lahayd ee dunida ugu xooga badnayd ee maraykanse markay isku dayday khamri inay joojiso way joojin kari weyde tajribo labaad baan idiin sheegaya marka oo saddexaad oo isla maraykan gudihiisa ah waa tajribo ay sameeyeen dadka madmadow ee maraykanka jooga ee muslimka ah iyana waxay dib u tijaabiyeen bahalka kani waa sharaabulkaafir ee iska dayno intoodii islaamtay bulshay samaysteen mujtamacaad bay samaysteen iyagoo degan meelaha ugu khatarsan sheekh israaj wahaaji la odhan jiraa wuxuu lahaa dee wuxuu harlem street brookline ayuu degay waa meelaha ugu caansanee dee lagu iibiyo dragga booliisku soo geli karin ama booliiska la dilaya ee meelaha khatarta ah ayay degeen iyagoo kooxa dadkii siday u wacdinayeen diin ugu sheegayeen waa islaameen drug dealerskii culumay ka dhigeen masaajidda joogta drug dealerskii oo dhan bay ka joojiyeen ilaa xad markii dambe dowladda maraykan markay aragtay waxa kan sidaa loo joojinayo la yidhi ha la ogolaado in nimankan muslimiinta ee madmadooya muslimkan cusubi ijraamkii xabsiyada ku batay iyo dhulkan ay xabsiyada wacdiyaan oo meelahan wacdiyaan oo bal dadka kan si looga joojiyo druggan iyo khamrigan iyo belyabaska looga joojiyo idan waa tajribo labaad oo dadkii ugu khamri cab badnaa dee waa taqaanaa nin madooba la gumaystay halkiinaba uu joogaa socankaa maaha maxay sameeyaan dee noloshii markii laga quusiyey ee waxba looga ogolaan waayo nolosha way ka dhaceen markaa yara inay ka baxaan dunidan dadkuba joogo ayuunbay go-aansaneedoon inay waashaan iyana oo qofku maxaa baan u cadhoonba maan iska maqnaado markay carab iyo ciilku ka badatay bay doorteen inay maqnaadaan kadalik buu ninka madooba maraykanka jooga ahaa wuxuu isku dayay inuu dunidaba ka maqnaado laakiin dacwaddii islaamigaad markay bilaabantay dib buu usoo celiyey waxaan leenahay markaa qofka bini aadamka qalbigaa laga hagaa iimaan baa haga caqiida hagta diin baa hagta qofka bini aadamka ah haddaynu rabno inaynu akhlaaqdiisa dhisno haddaynu rabno inaynu dadnimadiisa dhisno haddaynu rabno inaynu qof insaana ka soo saarno wuxuu u baahan yahy inaynu diin siino wuxuu u baahan yahay inaynu rabbigii ku xidhno wuxuu u baahan yahay inaynu barno meel dambe oo lagu xisaabinaya inuu jiro xataa qaanuun oo dhan hadduu ka baxsado walidalik ayaa tajaaribtaasi way guulaysatay tajribadii nebi moxamed waa guulaysatay calayh isalaatu wasalaam tii maraykanka iyo xoog iyo xoolaha iyo dhaqaalaha iyo cilmiga iyo sayniska haysatay way fashishay distoorka ku darsatay tii ninka madooba maraykanka jooga aan waxbaba haysani way guulaysatay idan waxaan idiin sheegayaa dadku waa laba kooxood koox iyadoo aan bogsanayn dee ilaa horta dhakhtar la geeyo mooyaane oo dee noocan dambe drugga aynu leenahay drug dependencyga ku dhacay wuxuu u baahan yahay in dhakhtar la geeyo oo horta uu bini aadam noqday ila imanka bini aadamnimadii uu ka maqan yahay kadibna si aanu daa'iradii ugu noqon wuxuu u baahan yahay in iimaan iyo caqiido saafiya la siiyo ilaan inta badan waa la geeyaa way soo ladnaadaan wuu soo baxaa bil iyo laba markuu jooga unba halkiisii haddana ka bilaabaa dan fooste gunlaa baa la dhaaminayaa ilan waa dad xaggana laga soo waalaya xaggana lagaga soo celinaya saan baa loo wadaa waa fooste gunla akhwatii fi lcaqiida marka waxaan idinka soomaali ahaan
halkan daraga inuu haysanay inuu barakaysan yahay mooyaane inta kale inaguma badnaan jirin sacanka maaha qaadka dee siiba raggii galbeed ka yimi ama waqooyi ka yimi malaa koonfur baraka marna muu lahayno muu gaadhin xadka barakade koonfur idinka bunka idin baraka lahaa laakiin marka galbeedka la tago ama waqooyiga la joogo dee qaadku wuxuu ka mid ahaa dhul baan haddaan la weyse qabin aan la cuni jirin ma rumaysanaysaa marka la cunayo loo weysaysan jiray oo dhulbaa dee masaajidooda waaweyn ay wada leeyihiin maqsin yaroo imaamka iyo muadinka iyo sheekha kitaabka dhigaya iyo kooxdaasi ay ku qayisho halkuu bunku idinka joogo muga joogo yacni hisaab bunka looga barakaysan jiray meelaha loo saarsaari jiray ayuu baa xaggana qaadku barakada u jiray waxaana laga yaabaa dad badan inay leeyihiin qaadku dee culamadii baa cuni jirto xalaal buu ahaa qaadka dunidu waxba kamay ogeyn waagaa hore laakiin iminka cilmiyan baa loo ogiyey mawaadan rasmiga aan sheegayo waa 1978 goorta la ogaaday inay cathinon ku jirto maadadan ugu khatarsanaan vitaminka la mid waa 1978 goorta la ogaaday gebigeedba scientifically iminka se muran kuma jiro inuu maandooriyeyey marka la joogo scienceska iyo qaybta cilmiga sharcigana shaygu wuxuu yahay marka la sugaa unbaa culimmada la weydiiyaa waa waxaase ma xalaal ba mise waa xaaraan wadaadka iyadoo aan la garanayn haddii la weydiiyo la yidhaha dee waxba laguma noqdee bahalku intan yarun buu keenaa in yarun baa la yaro marqaamaa dee waa iska xalaal biidn illahi buu ku odhan doonaa iska cun haddiise la yidhahdo bahalku waxan buu keenaa waxan buu keenaa waxan buu sheekh keenaa dee waa ku odhan doonaa kaasi diinta kuma banaana idan diintu waxyaabaha qaarna biasmaa'ihim bay inoo tilmaamtay biacyaanihim waxyaabaha qaarna qawaacid guud baa la soo geliyey waxyaabaha qaarkood biacyaanihim baa laynoo tilmaamay khamrigu waa xaaraan baa qur-aanka ku qoran baktigu waa xaaraan baa qur-aanka ku qoran khansiirku doofaarku waa xaaraan baa qur-aanka ku qoran bahalada cidida iyo micida iyo waxaa ku ugaarsada waa xaaraan baa sunnada ku qoran qaar waa laynoo sheegay qaarna qaacidaa layna siiyey qaacidadaa wixii soo hoos galaa khabaa'is wixii ah oo dhama wayda ka mamnuuc baa la yidhi طayibaadkuna waa idin xalaal waa qaacida wixii nafta dhibo oo dhami waa xaaraan baa la yidhi maalan suntu aayad le suntu waa xaaraan ma jirto laakiin waxa nafta dhibo oo dhame subum iyo waxaasoo dhami waa xaaraan idan maanta mawaadani maadada tani maaha maadad khayr inoogu jiro innaga weliba mar labaad waxay inugu tahy obium warkii china oo kale inugu tahy dowladay hard currency u tahay de ethoobia iyo kenya hard currency-ga ugu badanay dowladaha soo gala waxaa ka mida qaadka waxa ka soo gala socanka maaha waa hard currency dowladahaasi way beerayaan way korinayaan maanta ethoobia waxaa laga yaabaa dadkii bunka beeri jiray inay bunka iska daayeen waayo bunka qiimihiisii baa jabay markaa ninku intuu bun beeri lahaa waxa uga qiimo badan inuu qaad beero ugana qaalisan bunku xilliyuu baxaayo qaadku dee 24-ka 12 biloodba waa la guraa 12 biloodba suuq buu leeyahy meel fogba halkan suuqa ugu dhow ayaad lacagtii ku haysataa idan waxaa laga yaabaa dowladaha jaarkeenna ahi waa hard currency iyagu waxay ku dadaalayaan inaynu cunno waayo dowladda danbaa ugu jirta inaad cunto ama soomaalidu caafimaad waaye dhaqan waaye diin ku waaye ma u malaynaysaa dowladnimada inuu taaglaan iyo waxaynu taaglaan oo dhan inuu ka mid yahay problemka qaadku ma jiro accident waddan ka dhaca ilaa iyo 70-80% qaad baa sababay saa ma ogti nin qaad doonaya nin qaad lagala baxsaday nin marqaansanaayo nin mijintiisii la qaatay nin mijan waayey wuxuuba waa intaa un daydaga la sheegay waa nin qaad waayey nin kan waayey dowladda la sheegayo waa qolo waxay ku qayisho waa wuxuu hadduu bariis noqon lahaa dadku iska wada dhargi lahaayeen hadday cunno ahaan lahayd dadku wuxuu cuno ma waayeen idan markaynu mukhadaraad ka warramayno kama warramayno kowkab kale dad ku nool iyo mushkiladooda waxaynu ka warramaynaa kowkabkeennii intiinii dabadda u soo baxdayna dee balaayooyin cusub baa ku darsateen socankaa maaha intii dabadda usoo baxday inkastoo soomaaliyaba maanta balaayooyinka qaarkood ay bilow yihiin se joogaan xaggan se dabadaha dee bulshooyin baa u timaadeen drug abusku uu caadi ka yahay hadday khamradta iyo hadday herowiinta iyo hadday
mid ka daran tahay iyo hadday mid ka fudud tahayba wuu badan yahay waxaa u baahantihiin bulsho ahaan inaad dhowrsoonaataan isku daydaan idinku dhexdiinna idinku aan iscaayin isceebaynin mid qaad cuna iyo mid aan qaad cunin waxani waa mushkilad bulshadeennu ay qabto inaynu daawo u raadino waa bulshadeennu mushkilada ay qabto inaynu daawo u raadino kuwa dhaqaalaha ka dayaya inaynu u raadino dhaqaale ka gadisan inay tijaabiyaan ilaahay arsaaqdiisu ma yaraa arsaaq badan oo kalea la raadacayn karaa kuwa cunayaana inay iska daayaan oy diintooda raadacaystaan salى اllahu calى nabiyi mxamedi wعalى alih وصaxbi وsلم alxamdu lilah rab اlcaalamiin jaزاه اllahu khayra وbaarak اllahu fiika sheekha noo soo gudbiyey qofkii su-aashiisa ka waayay ee mawduuca khuseeyin baan xilqas iska saari doonaa insha allah kuwa kalena waxaan ku dari doonaa su-aalaha habeenka caamka ah sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullah sheekh cabitaanka coca-colada iyo midka la yidhaahdo enerjiga ama red bullka loo yaqaano oo ay ku jiraan maadada loo yaqaano kafeyiinka ma daroogada kafeyiinka iyo nicotiinka iyo kuwa kamaan hadal waan iska dhaafay calى kuli xaal coca cola ereyga kani coca iyo cola coca waa cocayin soo ma ogidin asalkiisa cocayin baa lagu dari jiray laakiin beri dambe ayaa la mamnuucay in lagu daro coca cola hadda culamada muslimiinta sidiisa wax u leh waa xaaraan maan arag waayo haddaad foosta coca cola cabto ma sakhraamaysaa haddaad foosta coca cola cabto mukhadar ma noqonaysa ma dhacdhacaysa ama ma wareeraysa ama hallucination ma kugu dhacaya ama yani maandooriye markaa ma aha ila waxaynu nidhi wax kastoo muskira ama mukhadir ah coca cola markaa muskirna maaha mukhadirna maaha laakiin waa maado aan faa'iido caafimaad iyo mid cunno toona lahayn waa lacag khasaaraha marka sideeda inaad isaga dayso ayaa ka roon laakiin markay xaaraan iyo xalaal tahay waxa le waa xaaraan maan arag inkastoo shubahaadka qaarkood ay ku dul wareegaan waayo maadada koolaha la yidhaahdo solba biyaha kuma milanto bahalana biyo ku jira marka asliyan khamraa lagu milaa maadada koolaha la yidhaahdo si ay solvable u noqoto wax milmaya ay u noqoto waxa lagu dara khamri laakiin culamadu waxay yidhahdeen biyaha lagu daraabaa ka badanoo waa fowqa alqolataynko markaa ma aha haddaad wax badan ka cabto iyo haddaad wax yar ka cabto toona sakhraamaysid yani waxaa laga yaabaa maadada iyo intii yarayd barkad biyaha in lagu dhex daray markaa ma aha wax calaa kullin markaan soo duuduubo kookuhu wax lagu sakhraamo iyo wax maandooriye ma aha coca-coolu bahalka la yidhaahdo laakiin waa maado aan caafimaadka u fiicnayn kow waxay dhaha dhalada kooka 15 malqacdood oo sonkora wax u dhigma laakiin maadadan sidan lagugu loo sameeyey kuwalkan yar iyo waxa ka baarado aad u dhadhaminaynin marka calaa kulli xaal caafimaadka uma fiicna laakiin xaaraan maaha wallahu aclam jaزاه اllahu khayra su-aasha labaad wuxuu leeyahay saa'ilka sheekh dadka qaadka ka ganacsan wadankooda qaadku waa wixaynu iskaga waafaqno haddaynu aragno inuu xaaraan yahay waa shay xaaraana qofkii aan ogeyn ee u haystay inuu xalaal yahay ee calaa hada alasaas kaga baac mushtareeyey wixiisii hore soo galay in shaa allah waa u xalaal laakiin maantay u caddaato inuu shaygani xaaraam yahay uma banaana inuu ka baac mushtareeyo wallahu aclam sheekh wuxuu leeyahay saa'ilkan walaalkay wuxuu isticmaalaa cirbid la yidhaahdo taramidol dhaawac ku dhacay dartii ayaana loo siiyey 5 sano ayuu haddana isticmaalaa sidee looga goyn karaa dhakhtar la tasho yani waxaad u baahan tahay tabiib takhasus kale inaad la tashato oo markaa kaala taliyo sidee looga goyn saa'ilkan wuxuu leeyahay isagana nin gaal ah ayaan ka qamriga cada ayaan ka jiraystay guri ma ka qaadan karaa sarifka mucaamaladiisa maslee noqonaysaa ninkaas sarifka muxuu nin gaal qamriga ka ganacsado
calaa kulli xaal gaalku lama weydiiyo war maxaad ka baac mushtaraysaa de waa gaale wixiisana lama yidhaho war xaggaad ka keentay waa gaal sidaydan gaalada kale waxba weydiinayn baydan waxba weydiinayn maadaama uu gaal yahay min baabi tawaruc inaad meelaha xunxun iskaga durugta way fiican tahay min baabi alwarac laakiin aslan gaalba hadduu yahay dee gaal waa gaal isaga xaraar iyo xaraaran kuma shaqo laha yani مثلا عادي عمر بن الخطاب كوي لقى قاديي نجزيده لقى قاديي بقى بixin kari waaye waligi meesha joogo muslimka aha ay waxay dhaayeen khamraan wadin siinayna khamriga qaadka iibiyo dawladda u shuba Umar wuxuu ku yiri maya iyagu wuxuu laha qaataan soo iibiyo anaga lacagta noo keenade lacagtii dawladdu way qaadanaysaa islaamiga caadiga Umar ee laga soo iibiyay khamriga loo qaadanayay inay tahay على كل حال قال هو قال كان كلام انه شبه خمر يربا يقولون يضفار بوضع سمع يبا وحبا كيبس انا اساس بروح له كليبس هذا والله اعلم انت اروي سؤال كان يقول لي السلام عليكم ورحمه الله شيخ waxaan leeyahay dukaan weyn qayb kamid ah dukaanka waxaan ka kireeyay dad kale waxayna ku galaan sigaar kirada ayaan ka qaataa marka saamayn kale ay ugu yeelanaysaa sheekhu malweydiye su'aasha ugu dambaysa saailkan wuxuu leeyahay sheekh ka waran kaniiniga ragga tabarta yar ay isticmaalaan dumarkoodu ma daroogaba ay masaa'ilka caafimaadka ku saabsan midaal kiniino badan baynu soo sheegnay oo ka mid ah qolada caafimaadku ay isticmaasho laakiin darooga ah maxaa laga yeelayaa kiniinadaas culamadu waxay tilmaamaan wixii daawanimo loo isticmaalo khamrigu isagu kuma jiro khamrigu waa khamri isaga quraan iyo xadiid ba ku soo arooray inaanu daawo ahayn isaga halka iska dhig mukhadaraadka kale ee daawanimada loo isticmaalo haddii daawanimo uu qoro tabiib muslima oo ilaahay ka baqaya isla markaana aanay jirin badiil kale oo qofka la siiyo culamadu waxay leeyihin uu isticmaali karaa laakiin wuxuu ku isticmaalaya isagoo isticmaalaya maxay qorshaha tibka loo dejiyey markan markan ma aha yani mukhadar looma siinayo in la daweeyabaa loo siinaya looguma talagelin inuu maxaa la yidhaha drug dependency ku dhacayo waxa kale marka waxaan uga jeedaa masaa'ilkaasi dhakhtar muslim oo ku kalsoontiin la tashada wixii aan khamri ahayn uu daawo idinku qoray baabkaas ku saabsan waa baab ka gadisan baabkan kayfka aynu ka warramaynay وبالله التوفيق ناقص يلوث برنامج